waa maxay affiliate marketing waa maxay affiliate marketing ama suuqeyn gacan saareedku ama suuqeynta loo yaqaano affiliate marketing sida ku qoran ciwaankaba waxaan rabnaa inaan maanta ka hadalno qaabka sida uu shaqeeyo iyo waxa uu ka kooban yahay iyo sida lacag looga sameyn karo affiliate marketing marka basically baan rabnaa inaan isla soo dhinac waxay tahay magacaygu waa Maxamed Charles kanaalka aad naga daawanaysaan waa Boostpix ku soo dhawaada haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir subscribe sar kadibna gambalelka furo si aad noola socoto casharadeenna iyo muuqaalada dambe ee ka sheekayn doona arrimahan waxaan kanaalkan uga sheekayn doonaa ama uga hadli doonaa online business iyo qaybabkiisa kala duwan ee loo sameeyo anigu dabcan ma jecli ama ma ahi dadka sameeya waxa la yiraahdo clickbait ama clickbait halka aan kugu qoro clickbait waxa la yiraahdaa markii aad ciwaan lagu soo khaldo ciwaan waxa weeye ku soo jiidanaya la qoro salahan oo kale maalintii waxa samaysaa $1 oo kale si fudud ama lacag number inta la soo qoro ciwaanka kadibna aad soo raadid si dad badan ay u daawadaan haddana markii aad daawatid laga yaabo inaad ka niyad jabtid ama aad wixii lagu soo qoray meesha iyo waxa aad daawatay inay kala duwan yihiin taasaa waxa la yiraahdaa clickbait marka somehow waa negative oo sababta dadkii in the long run waxaad view baad markaa raadinaysaa laakiin dadkii si saxa contentiga macnaha ma aha mid value ah marka meeshaan arrintaas mid ka duwan baa ku haynaa bilcagsi ah dadku hadday rabaan ha yaraadeen in the long run dadku markay arkaan in value-ga ama contentiga waxa weeye loo soo bandhigayo inuu qiimo leeyahay ama ay wax ka faa'iidayaan dadku iyaga markaas soo badan doona oo kula joogi doona marka arrintaas waxa weeye waxaad nooga baran doontaan in aan soo gudbino wax dadka anfacaya oo si toos ah loo taaban karo yaan ku badin hadalka aan u gudagalno barnaamijkeena okay soo dhawaada mar kale ciwaankeena maanta waxa weeye waa maxay affiliate marketing marka affiliate marketing waxa uu yahay si aan u aragno af Soomaali ayaan markaa ku qoray waxa uu yahay si aan u aragno affiliate marketing ama suuqeyn gacan saareedku waa in aad iib u raadiso badeeco ama adeeg aadan lahayn si aad commission uga hesho simply waa intaas badeeco ama adeeg internetka ku dhex jira oo adigu aadan iska lahayn dadka qofkii sameeyay aadan ahayn ayaad waxaad u raadinaysaa iib kadibna commission ayaad ku leedahay marka la iibsado basically waa intaas marka yaana ku dheeraan aan kasii gudbo affiliate marketingka marka wuxuu leeyahay ciwaankan kale aan gudbo typeska laba nooc marka waxaa jirta affiliate marketing ama laba ilood oo laga helo alaab aad u suuqayso qaab affiliate marketing ah marka labada nooc waxa weeye affiliate networks iyo in-house affiliate programs affiliate networks ka waxa weeye waa shabakado ay isugu yimaadaan dadka alaabta ama badeecadaha haya iyo dadka adiga oo kala ah oo raba inay alaabtaas suuqeeyaan baa waxa la yiraahdaa affiliate networks halkaan ciwaanka saddexaad baa ku arki doonaa tusaalayaasha ka mid ah in-house affiliate programs-na waxaa la yiraahdaa shirkad u samaysay barnaamij gaar ah oo affiliate program dhexdeeda ka dhex samaysay si dadka iyada xayeysiinaya ay isaga diiwaangeliyaan oo ay dadkaas commission u siiso marka shirkadaas alaabteeda ama badeecadeeda ma ay geynayso affiliate network ma ay tagayso laakiin ayada ayaa waxay samaysatay program affiliate program oo in-house baa la yiraahdaa marka asagana tusaalayaashiisa waxaan ka arkaynaa ciwaanka afraad baan ku arki doonaa marka labadaas bay barnaamijyada affiliate programka u qaybsamaan labadaas nooc marka
labadaba waad ugu tegi doontaa adigu markaa rabtid inaad affiliate marketing samaysid oo labadaba kaa doontid ayaad wax ka soo qaadan kartaa ama shirkad gaara ayaad la heshiin kartaa oo aad la samaysan kartaa waxa weeye heshiiskaas inaad affiliate marketing kula shaqaysatid ama affiliate network baad tegi kartaa oo aad ka soo qaadan kartaa alaabo kala duwan oo tiro badan haddaba aan u gudubno tusaalayaasha markaan u gudubno affiliate networks tusaalayaasheeda markaan u gudubno waxaa ka mid ah Clickbank, JVZoo, Warrior Plus, Commission Junction, Digistore 24, Amazon Associate. Okay, kuwan marka aan aragno bal waa affiliate networks aad tegi kartid si aad waxa weeye uga samaysid alaab uga soo qaadatid alaabtaasna aad suuqaysid. Okay, Clickbank waa in the US maraykanka ku yaala waa midka ugu caansan affiliate networks kala tago uguna fudud si simple si fudud baad waxa weeye lagu aqbalayaa inkastoo uusan ogolayn Africa inteeda badan ma ogola inuu aad iska diiwaangelisid laakiin kuwa kale way ka yeelayaan inta badan waxaa ku dhufanaysaa marka sign up marka aad rabtiin iska diiwaangelisid haddii aad account ku leedahayna login baa leedahay okay kaba soo qaad marka account kuma lehid sign up kii baa samaynaysaa halkaas marka iska diiwaangelinaysaa sidaas u soconaysaa u wadaysaa marka annaga hadda mawduuceena inaan website kasta iska diiwaangelin mayno laakiin waxaan rabaa inaan ku tuso magacyadooda iyo marka la dhex galo sida ay og yihiin example-ka ku xiga muxuu ahaa JVZoo waa affiliate network kale oo isagana aad iska diiwaangelin kartid asagana sidaas oo kale aan isla aragno website-ka aan isla aragno kadibna waad iska diiwaangelinaysaa okay website-ka marka waa kan marka maxaad samaynaysaa login baa leedahay marka haddii aad ku leedahay haddii aadan ku lahayn halkaa ku dhufo account haddaadan lahayn kadibna waxaad samaysaa waxaad tegaysaa meeshaan halkaana marka waxaad ku qoraysaa macluumaadka caadiga ah akoonnada caadiga markaad fulinaysid magacaaga emailkaaga passwordkaaga barnaamij noocaas intaas aad ugu buuxinaysaa kadib waxaad u gudubtaa tusaalaha ku xiga Warrior Plus sidaas oo kale halkaa hadda awal bay ugu qorxaa okay Warrior Plus markaa ku dhufatid saas oo kale u tagaysaa Warrior Plus-ka hadda waa joognaa waa ku dhex jirnaa waxaa loo baahan yahay marka inaad iska diiwaangelisid marka dabcan halkaan oo kale sign in-kaan oo kale ku dhufo isagaa nageynaya meel caadi oo aan account ka samaysan karno kadib halkaan aad gashanaysaa marka account-kaaga aad horey u lahayd laakiin maadaama aynan lahayn create an account baa leedahay create an account halkaas ka samaysanaysaa marka username geli password geli email address geli username-ka marka waa iska macnaha nickname oo kale geli ama nainas password ku qoro kadibna email geli halkan tigta saar Robert ma ihide create account kadib email verification buu samaynayaa kadibna wuxuu ku geynayaa meel caadi oo aad ku dhamaystirtid waxa weeye sorry meel caadi aad ku dhamaystirtid isdiiwaangelintaadii okay commission junction CJ affiliate baa la yidhaahdaa website-yada adiga hadhow mid kasta si fiican lagaa rabaa inaad u baartid tusaalayaasha kaliya aan hadda ku tusayaa CJ affiliate waa kana muuqaalka ma raba inuu dheeraado sababtaas aan boobsiinaya waxaad samaynaysaa marka sign up baa leedahay marka aadan account ku lahayn marka sign up marka aad tiraahdo waxaa jira laba hab oo aad isku diiwaangelin kartid adiga marka publisher baad advertiser ma tihid advertiser waxaa noqda dadka alaabta raba in loo xayeysiiyo oo loo suuqeeyo oo CJ affiliate wax kale uma isticmaalaan waxay u yimaadeen alaabtooda suuq ay u helaan adigu alaabba ma lihid ba waxaad rabtaa affiliate marketer baa tahay waxaas shaqo kuma lihid marka waa inaad iska diiwaangelisaa as a publisher waa inaad iska diiwaangelisaa halkaana tegaysaa
sababta adigu waa kan de akhri intaan akhrinaysaa intaa yartaa sabab waxay ku kala duwan yihiin tanna waa tan intaas marka waa maxay halkaan alaabaad markaa si alaab lagugu promote gareeyaa meesha u tagta markaana si aad commission u heshid baad u tagta marka sign up leedahay halkaan under publisher ama qaybtan publisherka ah CJ affiliate asaguna waa ka Digistore 24 waa Germany bay degan tahay qaybteeda ugu weyn marka aad saas oo kale u tagaysaa waa affiliate network caadiya oo aad sidaas oo kale alaab uga heli kartid aad suuqayso register now baad leedahay saas u wadaysaa hoos u wad waa kana saddex xab isku diiwaangelin ka dhaa oo ah vendor and affiliate inaad isku tahay mid qof macnaha alaabna leh affiliate-na ah oo suuqeeye ah inaad affiliate kaliya tahay iyo inaad tahay qof alaab kaliya leh ama vendor oo aan macnaha isagu alaab la imaanaya meesha si loogu suuqeeyo marka saddexda adu marka affiliate dooro sababtoo adu alaab ma lihid waxaa tahay meesha waxa usoo doonata inaa waxay siisid Amazon associate tusaalaha u dambeeya oo affiliate network ee aan ku tusi doono waxa weeye Amazon associate waa kana marka Amazon associates waa ka linkiga saxda affiliate-program.amazon.com halkaan ku keenaya Amazon halkaan ku dhufanaysa sign up waa Amazon shirkadda weyn oo caanka ah Amazon qaybteeda associate qaybteeda affiliate programka weey marka waa affiliate network oo lamid ah kuwii hadeer oo kale oo alaaba badan ay ka helaysid waliba alaabaha laga helayo tan waa alaabaha physical products ka la yiraahdo oo caadiga ah tooska ah oo la taaban karo maacuuntii qalabka dhismaha electronicii qalabkii waxa weeye hurdada wax kasta laga helayaa laakiin kuwii kale waxay u badnaayeen affiliate networks ka kale waxay u badnaayeen digital products waxa la yiraahdo ama software-hada iyo waxyaabahaas kana marka haddii marka aad leedahay aad ku leedahay account sana isaga diiwaan waa sign in way waad gelaysaa email-kaaga baa qoraysaa password-kii baa qoraysaa laakiin hal uma rihi soo ma create baa leedahay create markaad aad tiraahdo halkaan ku keenaya sidaas aad u sii bixinaysaa marka waa very simple weeye in la iska diiwaan geliyo website noocaan ama affiliate network wax adag ma ahan laakiin si gaar ah aan muuqaal gaar ah uga samayn doonaa hadda waa dul maraynay marka waxaan filayaa inay ila fahantay affiliate networks wax la yiraahdo noocyada ay yihiin waxaan rabaa marka inaan haddana tusaalayaalkaas iyo qaybta kale ee la yiraahdo in-house affiliate programs oo ah shirkado si toos ah program u samaystay iyagu programkaasna alaabtooda loogu suuqeeyay inta la iska diiwaan geliyo oo affiliate networks ka hadda aan soo aragnay iyagu iskama ay diiwaan gelin okay marka aan iska xiro waxaan si aan u helo space okay tusaalaha koowaad waxaan ku tusayaa Bluehost affiliate program shirkadda marka Bluehost la yiraahdo affiliate programkeedaan ku tusayaa marka badanaa waxaan oo kale markaa raadinaysid waxa la sameeyaa waxa la qoraa shirkadda magaceeda kadibna waxa la raaciyaa affiliate program tusaale ahaan shirkad aad rabtid inaad wax u xayeysiisid ama aad mataqaan alaabteeda aad partner ka noqotid oo aad u noqotid affiliate u noqotid magaceeda qor kadib affiliate program raaci haddii affiliate program leedahay way soo baxaysaa hadda tusaale ahaan oo kale waxay qaabilsan tahay Bluehost waxay qaabilsan tahay web hosting-ka wax la yiraahdo web hosting-ka marka waa taqaanaan badankiinu waxa weeye website-yada ayaa u baahan website kasta wuxuu u baahan yahay servers buu u baahan yahay faylashiisa iyo waxaas u haya oo internetka si aa website-ku u noqdo live mid internetka ku jira haddaba Bluehost si ay isaga diiwaangeliso marka affiliate programkeeda waa kana join the affiliate team linkiga waa kana bluehost.com/affiliates meel saxan baa joogtaa kadib sign up leeyahay formka marka aad buuxisid iska diiwaangelisid Bluehost baad la shaqaysanaysaa oo halkii sale ay u keentina commission baad ku leedahay okay get response affiliate program baan fiirinaya get response marka isagu waxa weeye waa shirkad waxay qaabilsan tahay email marketing ama emailada suuqeynta emailada
oo kale, ama si kale haddaan idhaahdo waa waxa weeye customer relationship management ama CRM programs bay qaabisan tahay. Programkan marka wuxuu leeyahay affiliate program buu leeyahay. marka sign up baa leedahay. laba nooc buu marka ku siinayaa, laba option buu ku siinayaa oo labaduba affiliate program ah. wuxuu ku leeyahay halkii sale oo ay keentid $100 qaado oo aan bil kasta ku soo dhacayn, hal mar kaliya qaado. qofku hal mar markuu iska diiwaan geliyo oo lacagta bixiyo, lacagta waa $15 kaliya qofku markuu bixiyo sida caadiga. marka qofka sida caadiga u isticmaalayo oo macaamilka ah, adigu xitaa macaamil waa ka noqon kartaa haddii aad email marketing u baahan tahay ama CRM. marka laakiin hadda affiliate baan ka noqonaynaa. marka qofka aa keento $100 baad ku yeelanaysaa oo $100 bay ku siinayaan get response, waa oo one time ah. ama waxaa lagu siinayaa 33% lacagta qofku uu bixiyo. qofku marka lacagta uu bixiyaa 33% ku yeelanaysaa oo joogto ah. marka recurring inta qofkaasi uu joogo si joogto ah waa lacagtaas kugu soo dhacaysa. qofkaas intuu programka ka diiwaan gashan yahay oo bil kasta uu macaamilka u yahay, sababtoo qofku bil kasta lacag buu bixinayaa. marka uu qofku bil kasta lacag bixiyo, laga yaabo qof aad sanad ka hor keentay oo weli jooga, weli lacagtiisa waa kugu soconaysaa. marka waa haddii aad iska diiwaan gelisid qaybtan. haddii aad qaybtan iska diiwaan gelisidna hal mar baa $100 qofka ka helaysaa. marka recurring waxa weeye commission iyo waxay kala yihiin hal mar one time commission. way jiraan marka affiliate programs noocaas oo tiro badan baa jira oo recurring ah. mar dhan baan waxaan fiirin doonaa programmada recurring commission ka bixiya. okay, saddexda example baan marka ka soo qaatay in-house affiliate programs. waxaan tagayaa marka qaybta shanaad oo ah affiliate program affiliate marketing models. affiliate marketing model soma sorry labada model baa ugu waaweyn ama ay tahayba affiliate marketing modelska ama modelada suuqeyn gacansaareedku waa eray anigu aan u isticmaalay inaan ku af Soomaaliya ama ku era bixiyo affiliate marketing, oo ah sababta shirkadda gacansaar baa la yeelanaysaa markaad affiliate u tahay. marka saasaan waxaan u yidhi gacansaareed, suuqeyn gacansaareed. marka laba model bay kugu imaan kartaa. labada model marka waxay kala yihiin cost per sale oo CPS iyo cost per action oo CPA ah. cost per sale marka waxa weeye waa intii hadda aan soo aragnay oo dhan baa cost per sale loo qoraysa. sababtoo ah marka aad iib keento baad commission ku leedahay. marka aad keento qof wax iibsaday baad waxaa yeelanaysaa commissionkaagii. laakiin tan waxa weeye qofka aa keentay khasam ah inuu wax iibsado. qofka aa keentay wuxuu samayn karaa inuu iska diiwaan geliyo shirkadda balse uusan wax iibin, ama free trialkeeda inuu iska diiwaan geliyo, ama inuu emailkiisa siiyo, ama inuu waxa weeye survey u buuxiyo. wax uun ma garanaysaa macaamiil inaad qofka u keentay laakiin macaamiishaasi waxaa weli ma iibsan. way jiraan marka affiliate network kugu siinaya lacag inaad qof aad u keentay iyagoo aan waxba gadan. kaasaa marka waxaa la yidhahdaa CPA. waa model ka mid ah affiliate marketing course-meeda. CPA marketing baa la yidhaahdaa. waa kan marka qaybta lixaad baa ku arkaysaa marka CPA networks example-kooda, tusaalayaal ka mid ama website-yo ka mid oo si toos inta la isaga diiwaan geliyo waxaad ka heli doontaa CPA offers ama CPA alaab ah oo commissionkoodu nooca yahay. oo marka aad suuq u raadiso oo dad aad keento waxaad ku leedahay commission dadkaas iyagoo aan waxba iibsan. waa kan marka saddexdan example baa ka soo qaadanaya marka CPA networks. waa model ka mid ah affiliate marketing. website-ka ugu caansan marka waxaa la yidhahdaa Maxbound. kuwaan iska tiro tusoo itaabsi marka waxaan rabnaa Maxbound kana wareegaan u qoray Maxbound waa galay. okay, Maxbound marka advertiser iyo affiliates bay kala yihiin. marka adiga affiliate baata, affiliate baa marka ku dhufta. marka affiliate baa u noqonayaa become an affiliate. marka horey ma ugu lahayd baa la yidhi. marka do you already have an account with Maxbound? no, haddaan rabaa inaan ku yeesho. magacayga company garatay, emailkaaga geli, kadib next, kadib wuxuu ku sameynaya email verification uu sii wadayaa.
file waxaa lagu geenayaa form caadi oo mataqaanaa iska buuxinaysid kadibna waxaad u noqonaysaa CPA waxaad u noqonaysaa affiliate oo waxaad ka helaysaa alaab aad suuqayso click dealer baa ku xiga marka website-ka aan rabo inaan ku tuso oo noociisu uu yahay click dealer oo noociisu uu yahay CPA. okay waxaan waa ad marka xaysiin wey marka kanaa ku dhufanaysaa website-kan asagana waxaad ku dhufanaysaa halkan meel caadi ku dhufo halkan ku dhufo publisher hoostiisa ku dhufo oo CPA network hoosteeda ah. smart link waa sheeko kale weeye hadda mataqaanaa aanan sharxayn. okay publisher join now baa leedahay marka fill out the application form waxaas buuxinaysaa xogta markaa buuxisid waatan hoose kadib sheekadaas markaa dhamaystirto si toos ah ayaad ugu biiraysaa. waxaa inoo haray CPA lead waa midka ugu fudud oo aad iska diiwaangelin karto weliba adoo Soomaaliya jooga. kuwa kale waxaa laga yaabaa inay uga adkeeyaan CPA lead markaa ku dhufatid waxaa samaynaysaa sign up. login waa maxay waa marka account leedahay. okay marka iska diiwaangelinaysa marka dhowr hab aad iska diiwaangelin kartaa si fudud waliba anigu sida aan jeclahay waxaad iska diiwaangelin kartaa Facebook. sign up with Facebook marka dhahdid haddii marka device-ka marka uga jirtid waxa weeye internet ama computer-kaaga haddii Facebook uu kaaga furan yahay sign up with Facebook-na aad tiraahdo toos buu ku gudbinaya. haddii aad sidaas oo kale aad dhahdo Gmail kuu furan yahay oo sign up with Google aad tirahdana si toos aad uu kugu sameynaya account-ka. laakiin no Facebook or Google account maba rababa Facebook iyo Google account inaad isticmaalayso si toos ah raba inaad wax u qoro haddaad tirahdana halkan aad buuxinaysaa halkan aad iska diiwaangelinaysaa. marka waa maxay saddexda option baa haysataa si aad iskaga diiwaangeliso CPA lead. marka waxaa ila fudud oo aan isticmaalaa anigu Gmail-ada anigu isticmaala halkaas marka sign up with Gmail with Google baa iraahdaa kadib marka ku dhufato waxa ku soo baxaya Gmail-ada kugu jira meesha hadday hal tahayna hal Gmail baa ku soo baxay haddii kalena kuwa aad kala dooranayso kadibna mid baad dooranaysaa saas aad ku sii soconaysaa. CPA lead-na waxaad ka noqonaysaa gacan saar baa la yeelanaysaa. okay waa soo dhamaynay marka intaan ugu talagalnay casharkan ama mataqaanaa muuqaalkan waxaan filayaa inaad fahantay muuqaalka marka ku cesho wixii aadan fahmin waxaan oo dhanna waxay u baahanayaan faahfaahin laakiin hadda waxaan ugu talagalay waa maxay affiliate marketing marka lagu yiraahdo ama aad yani aad isweydiiso inay intaani ay u noqon karto wax ma garanaysaa fahan kaa siin kara waxay tahay moodaladeeda. intaan haddii aadan fahansaneen marka wixii waa ku dhex wareeraysaaba meel lagaa jiran garan maysid. marka leesnama gaarin weli inaad horta lacag ka samayso. waxaad lacag ka samayn kartaa markaad taqaanid sida loo iibgeeyo waxaan alaabtii hadda laakiin sidaa u heli lahayd baan ku tus dhammaan waxaan oo dhan waxaad ka heli kartaa alaab aad suuqaysid baad heli kartaa hadda oo waxaad taqaanaa meel aad ka hesho alaab affiliate marketing ahaan aad uga shaqaysan karto inta aad soo qaadatidna aad commission ku heli karto baan ku tus. laakiin sidee u suuqaynaysaa xagee geynaysaa traffic xagee ka helaysaa waa barnaamijyada waxa weeye noo soo socda. aad baad ugu mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaad wax badan ka fahantay. kanaalka subscribe saar muuqaalkana like ray haddii aad ka heshay lana wadaag asxaabtaada waa mahadsantihi.